Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Maanta waxaan rabaa inaan xog inaga siiyo Suusu Family and Friend Money Sharing. Waa maxay Suusu? Suusu waa barnaamij muddo badan soo jiitamayay oo wadamo Afrikaana ka shaqayn jiray. Waa barnaamij loogu talagalay sida magaca aad uga jeedaan Family and Friend Money Sharing. Waa dad family, dad asxaab isku dhow ah oo qaybsanaya lacag. Lacagtaas xagee ka imaanaysaa? waad garan kartaa haddii bulsho gaaraysa 100 qof iyo wixii ka badan haddii meel isugu timaado contribution intee la eg bay qaban karaan, qofkii imise u tari karaan. Meeshan waxaa loogu talagalay qof walba oo barnaamijkan ka mid ah inuu dhaqaale ku sameeyo, uu isbedel dhaqaale sameeyo. marka qofka soo galaya waa inay ka go'an tahay barnaamijkan inuu dhaqaale ka sameeyo. sida aad u jeedaan xogtan meesha ku qoran, barnaamijkan wadankaas Afrikaanka, Sri Lanka iyo Gambia, wadamadaas ayaa kow laga soo aasaasay. Aasaaskoodii iyo kaaska lahaa sida aan maqaal ku akhriyay. barnaamijkan nin dhalinyaro ah oo jaamacad u aaday wadanka dibadiisa ayaa wuxuu ku soo noqday tuuladiisii. wuxuu arkay dadkii oo aad dhaqaale daro u haysto. wuxuu yiri sidee baad tuuladan dhaqaale ugu sameyn karaa ama isbedel dhaqaale u sameyn karaan. markaasuu barnaamijkan alifay. barnaamijkan sidii uu ku shaqeeyay, sida aad u jeedaan taariikhda la aasaasay 1935 baa la aasaasay. dadka isticmaala 2.3 milyan bay gaarayaan xilligaas. wadamada isticmaala waa 4 wadan aad meesha u jeedaan. mid walba populationka intaa tiro la eg baa ka isticmaasha. waa barnaamij in muddo ah shaqeynayay, laakiin dhawaanahan dambe Soomaalida soo gaaray. haddii aan u fiirino dhinaca diin ahaan, maadaama aan muslim nahay, waxa aan qaadanayno ama aan helayno ama barnaamijkan laga samaynayo ma xalaal baa mise waa xaaraan. waa barnaamijkan sidaad regionka aad uga jeedaan waa barnaamij xalaala, waa sunni islaama. waa barnaamij wax riba aan ku jirin. waa barnaamij qof si siman lacag loo qaadanayo, si simanna lacag laskaga qaadayo. marka waa ka madax bannaan tahay wax xaaraan ah ama wax riba ah. qof walbana wuu weydiin karaa wadaadadu. sida sawirkan aad arkaysaan, barnaamijkan Suusu waa African for Generation and it's not even formula bangi system. male wax bangi system, male wax ii sheegin maxaa ay xafiisa. waa barnaamij ku shaqeeya qaab digital marketing ah. sida sawirkan aad ka arkaysaan, dad family oo meel isugu yimid oo lacag hortaal. lacagtaas baa maalinba qof qaata, maalinba 2 qof baa qaata. qof markuu qaato qof kale lacag looga jaraa. systemkaas waa system ayuuto ah, moodi inay casriyeysan tahay. ayuutada qof walba lacagtii uu qaatay iyadoo aan waxna ka dhimanayn waxna dheereen baa dib loogu celiyaa. laakiin barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay in dhaqaale laga sameeyo. haddaba haddii aan intaas xogtiisa uga soo gudbo, barnaamijkan seebuu u shaqeeyaa, qaab noocay u shaqeeyaa. barnaamijkan waxaa loogu talagalay qofka inuu 21 bari lacagta ku sameeyo ama lacag ku qaato. 4 bilood ugu horeysa bil walba lacag kala duwan baad qaadanaysaa. 4 bilood wixii ka dambeeya lacag same baad qaadanaysaa. lacagta same-taana waxaa ku bilaabanaysaa bisha afraad. bisha afraad marka aad gaadhid bil walba waxaad qaadanaysaa $8,000 baa kuu soo dhacaysa. lacag marka waxaa jira khidmad ah oo bil walba markaa lacag qaadatid la iska jaro. qofka markuu maanta axada iska diiwaan geliya barnaamijkan, waxaa ku waajibaysaa 2 qof inuu keeno. markuu 2 qof keeno, 2 qof asbuuca labaad mid walba waxaa ku waajibaya 2 qof inay keenaan. asbuuca saddexaad 4 qof ay saaxiibadiis ay keeneen baa mid walba wuxuu keenayaa 2, 8 qof ay noqonayaan. total teamkaaga markaas bisha ugu horeysa lacag ku qaadanaysid waxay noqonayaan 15 qof. sida sawirka aad ka aragtaan, marka ugu horeysa aad isdiiwaan geliyay, 2 keentay. 2dii waxay keentay midkiiba 2 keenay, 4 buu keenay, 4tii 8 bay keentay. 8daa marka aad gaadhid asbuucaaga saddexaad lacag $800 baa kuu soo dhacaysa. $800 markay kuu soo dhacdo, waxaa kugu waajibaysaa in aad jadid lacag $250 ah. si la mid ah bishii labaad baa soo wareegaysa. 8dii qof waxay qaadanaysaa midkiiba $800. midkiiba markuu $800 qaato, midkiiba wuxuu jarayaa $250. waxaa kuu soo dhacaysa bishaada labaad lacag $2,000 ah. 2,000 markay kuu soo dhacdo, lacag $500 baa khidmad ahaan kugu waajibaysa inaad jadid.
bishii saddexaad baa soo wareegaysaa 8 qof waxay ay qaadanaysaa midkiiba $2,000. midkiiba markuu $2,000 qaato midkiiba waxaa ku waajibaya lacag $500. $500 lagu dhuftay 8 qof waa lacag $4,000 baa bishaada labaad kuu soo dhacaysaa. si la mid ah bishii saddexaad way gudubtay, tii afraad baa dhammaanaysaa. 8 qof baa wuxuu qaadanayaa midkiiba $4,000 sida aad hore u qaadatay. $4,000 marka aad qaadatid $1,000 lacagaha baa kugu waajibaysaa inaad jadid. 8 qof markay $4,000 qaataan midkiiba $1,000 buu jarayaa. midkiiba markuu $1,000 uu jaro $8,000 baa bishaadii afraad kuu soo dhacaysaa. bishaadii afraad markay $8,000 kuu soo dhacdo waxaa kugu waajibaya $1,000 lacag inaad jadid. $1,000 marka aad jadid lacag $7,000 kuu soo haraysa. 4 bilood ugu horeysay barnaamijkan aad ku jidhay waxaa lacag aad helaysaa lacag $11,050. waa lacag aad u badan. waa lacag maanta aysan jirin ama wadanka hala joogo ama dibadaha hala joogo meel looga shaqeeyo. $11,000 4 bilood waa dhaqaale aad u badan. sanadkii imisaa ka samayn kardhaa lacag aad u badan baad ka samayn kardhaa. marka barnaamijkan waa barnaamij u baahan in qofku tiim u haysto. keliya qofka $100 uu bisha ugu horeysa isku diiwaangelinayo ujeedku ma aha. qofku waa in uu tiim u haysan karaa, uu team worker noqon karaa, oo si wada jir ah lacag loo tabci karaa. waayo tiimkaaga haddii uu tarmo sida sawirka aad ka arkaysaan, laamahaaga ay bataan, dadkaaga ay bataan, bil walba waxaa kuu soo dhacaysa adigoo aan shaqayn lacag $8,000 $1,000 oo khidmada kaa go-aysa bil walba waa jaraysaa. barnaamijkan waa barnaamij aad u fudud, keliya u baahan qofku inuu go-aan qaato. xaqiiqdii dadka dhalinyarada maanta barnaamijkan ku jira, maamooyin weyn baa ku jira, dad dhalinyara oo waxbartaa ku jira. Mareykanka kuwaa jooga, kuwaa Yurub jooga, kuwaa Afrika jooga. dhalinyaro waxaa jira jaamacada inta badan ka bartaa Kenya iyo Uganda. maanta ma qaataan biil. nin walba intuu barnaamijkan u galay buu bishii wuxuu ku xisaabtamaa dakhli aad u badan. barnaamijkan waa barnaamij dad badan oo Soomaaliya isbedel dhaqaale toos ay ka sameeyeen. keliya wuxuu u baahan yahay qofku inuu go-aan qaato, go-aankiisana uu ka dhabeeyo. tiimka aad waxaysanaysid wuxuu kaa caawinayaa in aad dhaqaale samaysid. 4 bilood ugu horeysa wixii ka dambeeya wax shaqo qaban maysid, tiim tababari maysid, tiim la shaqayn maysid, dadkeena oran maysid. keliya adiga waxaa kuu soo dhacaysa lacagtaadii. markii lacagtaadii kuu soo dhacdo haddee tiimkaagii hadduusan istaagin uu sii socdo bil walba lacagtaasaad helaysaa. barnaamijkan uma baahna qof lagu bareeyo, qof tiim aan waxaysan karin. qofka adigu aad keenaysa 2 qof oo kugu waajibaysa asbuuca koowaad wayna noqdaan dad firfircoon, dad keeni kara. qofka haddii uu $100 ula baxo uu noqdo qof fadhiid ah oo aan tiimkii la shaqayn karin, aan dad keeni karin, muhiimad kuma leh. muhiimadda keliya adigu aad barnaamijkan dhaqaale uga samayn karid waa in tiim ay tiimkaaga sii waxaystaan. qofka $100 waad u celinaysaa ama waa loo celinayaa. qof kaloo waxaad keenaysaa firfircoon oo tiim waxaysan kara, horeyn u socon kara, isbedelna doonaya inuu sameeyo. muhiimaddu waa tiim tugada in la sameeyaa, tiimka inay wada shaqeeyaan, inay la sii hormariyo. barnaamijkan waa barnaamij aad qof walba oo maanta dhalinyaro ah oo aan shaqaynayn ama shaqeeya anfacaya. waayo maanta haddii aad dhahdid salary baan sugayaa, dhaqaalaha aad ka helaysid ma aha mid noloshaada ku filan, ma aha mid aad noloshaada ku bedeli karid, ma aha mid baahidaada kaafin ka dha. barnaamijkan waa barnaamij dad badan oo dunida dacaladeeda isbedel dhab ah ay ka sameeyeen. guushu qofka waxay ku xiran tahay inuu isku dayo, inuu go-aan qaato, inuu dadaal sameeyo. dadaalaa wuu gaalaa wax walba uu doono. haddii aad u dadaasho dhinac wanaagsan waad gaaraysaa, haddaad dhinac xun u dadaasho waad gaaraysaa. keliya ruuxa waxaa looga baahan yahay inuu dadaal dhab ah sameeyo. barnaamijkan waa barnaamij socda una baahan in qof walba oo maanta isbedel doonaya dhaqaale way u furan tahay. qof ka xiran tahay ama maama ha noqoto, ama aabba ha noqdo, ama nin dhalinyaro ah oo shaqeeya ha noqdo, ama ha noqdo qof baagamuuda. waa barnaamij fursad furan haddii uu tiimkiisana shaqeeyo,
isbedel samayn karo. anuu barnaamijkan axadii horan soo galay 8 beri baan ku jiraa. gruubka la igu daray barnaamijkani lugtaani ama laanta aan ka mid ahay wuxuu uu marayay 182 qof. maantana wuxuu marayaa ku dhowaad 230 kor buu dhaafayaa. marka barnaamijkan waa barnaamij maalin walba qof uu soo galo, maalin walba dad lagu soo daro, qof walba qofkii u dhow oo asxaabtiisa oo ehelkiisa kusoo daraa. fursadu ama opportunitygu waa wax mar yimaada, markaasina qofku haddii loo bandhigo maaha wixii asigoo aan waxbana ka ogaan, asigoo aan wixii aan raacin ama aan baarin inuu iska ignore gareeyo. markaa wax ignore garanaysid waa inaad samaysaa baaris badan. maanta qof walba oo dhalinyaro ah markuu bishii uu helayo $7,000 waa dhaqaale aada ugu filan kana badan. marka adoo fursadda laguu sheegay, haddii adoo aan xogna raadin, waxna baarin, lagana yaabo in ay ku hayso duruuf lacageed, in aad maanta aad fursadda ka faa'iidaysan weyday, waxay kugu noqonaysaa guuldaro. marka barnaamijkan waxaa nila socodsiinayay anigoo Cabdimaalig Yuusufa. wixii tala ah, wixii tusaale ah, wixii su-aal ah, nambarkayga qaybta hore buu ku qoran yahay, waad igala soo xiriiri kadhaan. welcome baan leeyahay, kusoo dhawaada, noqdo kuwii isbedel dhaqaale iyo nololeed sameeya. mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.